bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijka muuqaalka dunida oodan oo kale aad ka daawataan shabakada qubanaha wararka. qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid a xaaladda dalka suudaan oo sii kordhaysay iyo dhibaatooyin kala duwan oo dibadbaxyaashu ay ka geysanayaan, iyo sidoo kale shaqo joojin looga dhawaaqay guud ahaanba dalka suudaan. maxaa sababay? barnaamijka muuqaalka dunida ayaad ku daawan doontaan. askari ka tirsan ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Niger waxaa la sheegayaa in qarax uu la kacay. haddaba sidee xaaladiisu? barnaamijka muuqaalka dunida ayaad ku daawan doontaan. sidoo kale waxaad daawan doontaan dowladda Qatar oo sheegtay in dadaal badan lagu bixiyo dhexdhexaadinta Mareykanka iyo Iiraan oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka dhaxaysay xaalad murugsan. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka muuqaalka dunida. weli waxaad daawanaysaan barnaamijka muuqaalka dunida ee shabakada qubanaha wararka. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadaal badan lagu bixiyo dhexdhexaadinta dalalka Iiraan iyo Mareykanka. Sheekh Mohammed bin Abdiraxmaan Al Thani ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada London in Qatar iyo dalal kale ay labada dhinacba ay xiriir la sameynayaan si xal loogu helo xiisadda sii xoogaysanaysa ee gobolka. hadalkan ayaa imaanaya toddobaadkan oo lagu wado in booqasho ku tago magaalada Tehran wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka iyo ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe, iyagoona isku dayay inay xal u helaan xaaladda si loo sameeyo labada dal. Sheekh Mohammed ayaa sheegay in Qatar ay weheliyaan dalal kale oo isku dayay inay dhexdhexaadiyaan si meesha looga saaro xiisadda ka dhaxaysa labada dhinac. waxa uu farta ku fiiqay in dhinac kasta uu leeyahay dagaal ma rabo, balse waxa uu sheegay in loo baahan yahay dadaal dheeraad ah oo albaabadu furan yihiin iyo wada hadallo dhex mara labada dal. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu rabo in Iiraan uu wada hadal la sameeyo, balse Iiraan ayaa sheegtay inaysan taasi dhici karin iyadoo Mareykanku uu ka baxay heshiiskii hubka nuclear-ka sanadkeenu soo dhaafnay, isla markaana uu sii wada cunaqabataynta cuuryaamisay howlaha dalka Iiraan. Mareykanka iyo xulufadiisa uu ka mid yahay Sacuudiga iyo Israa'iil ayaa isku dayaya inay Iiraan saaraan cunaqabatayn dhinaca dhaqaalaha. Sheekh Mohammed ayaa sheegay in Qatar ay xushmeynayso siyaasadda dalka Mareykanka, balse waxa uu sheegay in gobolka ay tahay Iiraan dhinac ay ka leedahay. waxaana uu sheegay in qofka jecel iyo qofka aan jeclayn bay Iiraan gobolka qayb ka tahay. wadamada carabta oo ay Qatar ka mid tahay ayaa dhowaan kulan ku yeeshay magaalada barakeysan ee Makka ee dalka Sacuudi Arabiya, waxayna uga wada hadleen xaaladda gobolka. balse Sheekh Mohammed ayaa sheegay in shirka kaliya diiradda lagu saaray cambaareynta dalka Iiraan halkii looga hadlaa sida lagu fududay loo wajahi karo wada hadallada Iiraan iyo Mareykanka. waa hagaag daawadayaal, waxaad daawanaysaan barnaamijka muuqaalka dunida qaybihiisa dhexe. ciidamada dalka Suudaan ayaa isticmaalay sunta dadka ka ilmeysiisa si ay u kala ceeriyaan dibadbaxayaal isugu soo baxay bartamaha magaalada Khartoum ee dalka Suudaan. 4 qof ayaa ku dhimatay maalintii koowaad ee shaqo joojinta, sida ay sheegeen dhaqaatiir gacan saar la leh mucaaradka dalkaasi Suudaan. ururada hogaamiyaasha dibadbaxayaasha ee dalka Suudaan ayaa waxaa shalay ay ku baaqeen in shaqo joojin la sameeyo si militariga loogu cadaadiyo inay xukunka ku wareejiyaan dowlad rayda. qaar ka mid ah shaqaalaha bangiyada, garoomada iyo waaxaha korontada ayaa xabsiga loo taxaabay si aysan u sheegin kooxaha ka dambeeya dibadbaxayaasha. ururka ay ku bahoobeen xirfadlayaasha ee dalka Suudaan waxay sheegeen shaqaalaha sidoo kale ay xukuumadda hanjabaad kala kulmeen si loogu cabsi geliyo in shaqo joojinta ay ka qayb qaataan. golaha militariga ee talada dalka Suudaan ayaa weli ka hadlin xaaladda murugsan ee dalkaasi ka jirta. tan iyo intii militarigu xukunka la wareegay waxaa sii kordhay dibadbaxayaasha iyo isku dhaca ciidamada ammaanka ee ka dhacaya dalkaasi Suudaan. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa isku dayay inuu kala dhex galo labada dhinac ee dalkaasi Suudaan isku haya, balse natiijo la'aan ayuu ku soo dhamaatay. golaha militariga ee dalka Suudaan ayaa horay u sheegay inay joojiyeen wada hadallada ay la lahaayeen mucaaradka dalkaasi Suudaan, waxayna militarigu bilaabeen inay xoog uga hortagaan dadka dibadbaxayaasha ay isugu imaanaya fagaaraha waaweyn ee magaalada Khartoum. ururka midowga Afrikana waxa uu sheegay inay joojinayaan xubinimada dalka Suudaan tan iyo inta looga soo wareejinayo xilka dowlad rayda.
hay-adaha xuquuqul aadanaha u dooda ayaa dhankooda sheegay inay gacan adag uga hortagaan laamaha ammaanku dadka dibadbaxayaasha ah. waa hagaag daawadayaal, waxaad daawanaysaan barnaamijka muuqaalka dunida. qeybaha dambe ee barnaamijka ood la socotaan. gaari ay lahaayeen ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Niger ayay miino la qaraxday iyagoo sii galay goob tababar uu ka socdo u dhow magaalada Autom ee koonfur galbeed ee dalka Niger. sida ay militarigu sheegeen, dhimasho ma jirto balse xaaladda askarta ayay qiimeyn ku socotaa, sida lagu soo qoray war qoraal oo ka soo baxay ciidamada Mareykanka. ciidamada ayaa ku safray gaari ay miinadu karin marka qaraxu dhacay. ciidamada Mareykanka ayaa dalka Niger ka caawiyay dagaalka ay kula jiraan kooxaha jihaadoonka ee gobolka. sanadkii 2017 afar askari oo Mareykan iyo afar askari oo Niger ah ayaa lagu dilay weerar gaadmo oo ka dhacay meel ku dhow xadka dalka Mali uu la wadaago Niger. guud ahaan daawadayaal, waxaa intaasi inoogu dhan barnaamijka muuqaalka dunida oo kala socoteen shabakada qubanaha wararka. intaynu barnaamijkan lacaan ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo. haddii aad channelkeena ku cusub tahay, subscribe, like iyo share inaga iloobin, waad ku mahadsantihiin la socodka barnaamijyada.